بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal khaasatan reer Bale Busle goormaa kugu dambeysay taalahaga dheere goormaa kugu dambeysay khaasatan balliga gaarka ah ay leedahay oo biyaha qabta oo dhinaca koonfureed ka xiga taalada ka xiga oo markii roob da'o loo soo dabaaltagi jiray oo la iman jiray wakaa taaladeena wataas wakaa adduun runtii waxaan xasuustaa waagaan yaraa iyo halkan oo aan isaga soo cayaartay markii roob da'o khaasatan aan balligan yarka isaga dabaalan jiray weliba balli biyaha dhoobo badan aan lahayn weeyo biyaha iyo aad iyo aad biyuhu ay u nadiif yihiin ilaah baa mahad iskale subxaanahu watacaala waa kaasoo balligii waana taas taala xagaa dheere ilaah baa mahad leh taa taala xagaa dheere xagaa dheerahaas wax laga wado runtii weli cid ma weydiin laakiin waa magac caan ah ay ku caan tahay way taala xagaa dheere marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa waddanka dowladnimo inuu noo soo celiyo iyo gobonnimo inuu noo soo celiyo iyo kala dambeyntii Soomaaliya lahayd markaan ciyaalku ahayn runtii nabaddu jidhay ninkii wixii aad u daran askari boolis u joogay oo xabsiga dhigayay ama uu tallaabo ka qaadayay reer hebel iyo qabyaalad aanay jirin qof walba meeshuu rabo macallin ka noqonayo askarina ka noqonayo Soomaaliya meeshuu rabo maartay carruurtiisa ku korsanayo kuna barbaariya makhaayadna ka furanayo businessna ka furanayo waagaas saasaanu ahayn halkan aanu iman jiray ilaahay dowladnimada Allah inoo soo celiyo subxaanahu watacaala oo sharafkii aan lahayn ilaahay inoo soo celiyo runtii waxaan xasuustaa waagaas waayihii ka dambeeyay weliba muddo 10 sano ka dambeysay markaan nin weyn noqday waxaan shaqo u raadsaday baydhabo 1993 by project baydhabo aan waligay arag ayaan shaqo u raadsaday dhul Soomaaliyeed ma aan reer hebel baa lahayn reer hebel baa aan lahayn yaa sidoo kale 1986 waxaan shaqo u raadsaday Berbera كمباني عصباني سنة دكدا بربرة أيام سكن شغال في 1986 إلهي ما سبحانه وتعالى سلوك 1987 وحنا شغال في سدي كمباني جي ساتس يوم الله فمن ودسي وضد بوساسة يدسي إلى جرو إلى يقال كعي إلى جرو دسي إلى بوساسة أيام شغال في سدي أنا هم حويان ملك الصوماليين ما لبضن بام تجنا إنه عن غير هبل الخبقين لكن هذا وهاي وصل كيس صهبيه baa igu sokaysa wasiil baa igu sokaysa qarqoora igu sokaysa yani aan iska tadakar iska aadi karaya maanta waa dad Soomaali walaalahay baa degan iyaguna isasakay baan karin qarka balabsa ku noolaan jireen deganaan jireen aysan maanta imaan karin ilaahay waxaan weydiisanayaa dadka qabta ilaahay inuu siiyo saasa ilaahay weydiisanayaa subxaanahu sharafka ilaahay noo soo celiyo kuwa qabyaalada dadka u kala qayb qaybsan ummadda ilaahay ka qabta ilaahay weydiinina maanta waxa weeye afarta bisha شوال كنا فرق فرطة يا صدق حجري أو كم بيجان شنطة بشا اللي هذا مي لابد أكون يلا بيلا باتنك وأنا ما الخميس ويان وأنا ما له سعفيه صومالي وهم صوت شدينا يا إنه سعفينه هنا كان أحمري إنه سعفينه سي لها إنه عفيه وتمان نمو يقولها خميس كستي سنين كستقبلها وعفيه ذاتك مسلمين تابع العفيه أو إله وسرقيين بالعفيه إلا لبا اسبوع قبطان مويانا كواس الهي وحو يرادا وكاديه حتى يصطلح وكاديه الى يشيان الى يشيان وكاديه الى يشيان وكاديه الى خلاص marka kuwaas ka tirna dambi ilaa baad ku dhaarshay dambi wala kama tirin ma soo runaysa markaad ugu fiiriso hadda islaan saxafiyin oo inaan saxafiyin oo wali reer hebel ku hayn goorma la ka tirayaa dambiga waxaan dawlad kasta hadda la soo horeysa ka codsanaya aniga oo Cabdimajid Maxamed Cali weyn balli Buslaan jooga dad badan aan isgaranayno Soomaaliyeed oo dibadda dakhilba jooga dawladda la sameeyo wasiirka u horeeya sameynaysa inuu noqdo wasiirka dib u heshiisiinta iyo saxafinta Soomaalida magacaab wax kale inta la magacaabay waliba waxa oran lahaa anu wasaaradaha kale waa laga maarmeen mooyaan haba laga maarmay intii xad ah muddaha la iska daayo waxa lagu kharasaayay nabadayn
يسعى فسهل قال يا الله يا أنو فسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذين أفكر إنه هشينه وإلهي إنا عفيه سبحانه وتعالى هاي كم بغى هاي كم بغى هدي إلهي أنا هدي أنا عفين لها وحول بنا وينها هاي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحكى ليه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إلهي وذنبنا ترجع يا الله بدو وتوكلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.